qaraxyada isdaba jooga runtii uu ku dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawaca oo wali isbitaalada runtii ku ildaran maaragtay wali dhaawacooda uu qoyan yahay ayaan rabaa inaan la qaybsado runtii xanuunka haya maadaama aan nahay wakiilkoodii maantana waa nasiib daro anagoo xildhibaanada golaha shacabka inaan noola soo diro ajenda ku saabsan dastuur iyo wax aan muhiim hadda golaha aan u ahayn ayadoo aan ognahay dhiigii shacabka Soomaaliyeed oo muslimiinta oo wax walba ay nagala muhiimsan yihiin oo runtii la dayacay amnigooda in la ilaaliyo in maanta noola keeno maartay waxaan ku habboon ajendaha runtii waa nasiib xumo waxaan kamid ahaa dadkii soo jeediyay in ajendaha lagu daro ama laga dhigo amniga in laga hadlo security shacabka Soomaaliyeed oo runtii aan u aragno muhiimadda koobaad inuu yahay laguna xisaabtamo xukuumadda ballamihii ay qaaday ee ahayd in amniga wax ka qaban doonto maadaama 2 sano la joogo warqadihii iyo ajendooyinka ay noo soo gudbiyeen oo ahaa in 6 bilood gudahood caasimadan looga dhigo amni inaan looga dhigin 2 sano la sii maray inaan amni shacabkeena Soomaaliyeed ay haysanin in maalin walba meelihii muhiimka ahaa oo dadka mas'uuliyiinta xataa aysan gudbi karin in qaraxyada inay soo gudbaan ay yimaadaan ay dadku laayaan dadkeenina maartay subax walba wadooyinka laga xiro iskuulaadkii aysan aadin jaamacadii ay ku dhib qabaan dadka xanuunsan isbitaalada aan la geeyni karin dadkii u hadli lahaa oo golaha u fadhiyay waa anaga golaha waa golo isla xisaabtan maaha golihii shacabka oo dadka inay u sacbiyaan oo maartay wixii la rabo laga marsado inuu noqdo maaha walaalayaalow dadka xubnaha golaha nugula jiro waxaan matalnaa shacabka Soomaaliyeed dadkii fursadda aan u helin inay yimaadaan golaha xuquuqda ay leeyihiin ay sheegtaan ayaa maanta anaga afayaan u nahay waxaana u doodeynaa intii tabar ay naciishaba waxaana rajaynaynaa in isla xisaabtan dhab uu ka yimaado inaan ka wada shaqeyno dhamaantan in magaaladeena iyo guud ahaan dalkeena uu runtii amni buuxa oo shacabkeena ay ku badbaadaan inaan heli doono insha Allah taala